وإذن سلام الدمان أصحاب تيجوا حيران دنيا دعالة هذا مال كستو أتكجوكتان وولاشين قطر هيربل أو إذن ودمانتا موضوع كلا عصب إن فائدوين كأولي هاي درت إلهي نقوم منستي نسيي وحكم إن دقيرهان دقيرها هذا يقول أكسين هاي فائدوين كيس أولي هاي دقيرها لما سوكو بكره marka waxaan mowduucina maanta ku saabsan yahay dhagayaraha sidaan u isticmaalo iyo faa'iidooyinka uu leeyahay inaan ka hadlo dhagayaruhu waa ubax qalalan oo ka baxa dalal badan oo maxay adduumaadka ku salaysan wuxuu ka baxaa dalka Hindiya oo kaleeto Shiinaha Singapore wadamooyin badan ayuu ka baxaa marka waxaa loo isticmaalaa dhagayaraha aad iyo aad ayuu maxay ahayd borotiina ka buuxa waxaa ku jira borotiin calcium potassium iyo waxaa ka buuxa vitamin E iyo vitamin C marka faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo ma sha Allah waa xanuun baabi'iye aad iyo aad u wanaagsan waay oo maxay ahayd daawooyinka barashtimolka madax xanuunka iyo aad isticmaalo asiga kaliya karsato aad sheex ahaan u karsado cabto xanuunka ku hayo dhan way ku deynaya waxtarkiisa waxaa kamid ah wuxuu aad iyo aad ugu wanaagsan yahay rheumatismka dadka qaba lafa xanuunka dadka qaba saliidiisa kaleeto waad samaysan kartaa hadii adiyadoo buura helaysana waad soo gadan kartaa laakiin marka ay maxay ahayd gurigaaga aad joogto oo xanuunka rheumatismka kala goosyada dhabarka uu ku xanuunayo saliida la caadi loo karsadaa markaas la marsadaa habeenkii oo kaleeto markaad marsato seexatood ku soo kacdo subaxii ma sha Allah adigoo fiiw ilaaha daawaha ayaad arkaysaa insha Allah taala marka faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo wuxuu u fiican yahay samboorka oo kaleeto mowduucina maanta wuxuu ku saabsan yahay samboorka aan isaga daaweeyo aniga inaan markaas saasan jeclays asxaabta inaan kugu bandhigo samboorka oo kaleeto neefta uu u fiican yahay xinjiraha dhiiga ee maxay ahayd xirxiran aad u furfuraa markaad xinjiro dhiiga xirxiran aad u wanaagsan asigna xinjiraha dhiiga uu furfuraa calool manjiirka oo kaleeto aad iyo aad ugu wanaagsan yahay calool xanuunka mindhicir xanuunka ma sha Allah lama soo koobin karo faa'iidooyinka uu leeyahay dhagayaraha marka aniga toobigay maanta wuxuu ku saabsan yahay sida aan u isticmaalo samboorka waxaan samboorka isaga daaweeyaa dhagayaraha waxaad soo qaadanaysaa dhagayaraha 4 qaado camala ama 5 qaado camala oo qaadooyinku waa weyn dama diranta itaala aad biyo dabka la saaranaysaa soo saaray وكاسا waxaan ku shubay 3 qaado oo dhagayarihii ayaan ku 3 qaado dhagayara ayaan ku shubay marka qaacaas ka baxay marka soo fiican u karkaro qaacaas ka baxay ayaa la isku uumitayaa ama samboorka isaga daaweyn kartaa waxaad soo qaadanaysaa mara ama shukumaan aad soo qaadanaysaa markuu saas u karkaro aad u karkaro markaas ayaad isku qaacinaysaa marka dabka saartana daboolka ma ka qaadaysid waxa la rabaa inuu uumitada ay gudaha oo ka soo bixin ayaa loo baahan yahay marka sidaas aniga isaga daaweeyaa insha Allah taala daawo ilaaha haayo marka asxaabteeda waxaan jeclaystay inaan idinkaga faa'iideeyo yani sida samboorka aan isaga daaweeyo dhagayaraha shaax ahaan waad u cabi kartaa marka sidaas aad isku uumiso biyihiisa shaax ahaan ayaad u cabaysaa oo soo shubanaysaa koobkaaga shaax amal aad u cabaysaa ma sha Allah aad iyo aad u wanaagsan yahay xinjiraha dhiiga waxaan ku leeyahay madax xanuunka xanuun baabi'iye lafa xanuunka wax kasta uu wanaagsan yahay waxa kale uu si wanaagsan yahay afka shiiraaya aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa ayuu aad u wanaagsan yahay marka asxaabta sidaas sameeysta dadka samboorka qaba ama dadka rheumatismka qaba saliida sida loo sameeyo aniga ayaa soo bandhigayo insha Allah idin tusaayo guriga sida ugu sameeysan karta dhagayaraha saliidiisa asxaabta sidaas ayaan jeclaysay inaan kaga faa'iideeyo walaalahayga qaaliga marka hadda waxaan soo diyaarinayaa shaahiisa ayaan tusayaa waa soo karkaray hadda waa kaasa shaahiisi ayaan tusayaa shaahiisadaas aan ku soo baxay marka saas aad u cabi kartaa guduud saad oo noqonaya hadii si fiican loo karkarsho marka ciyooman ka soo dajiyay waa isticmaali kartaa sidaan u isticmaali kartaa asxaabta waa isla fahanay dhagayarihii waa kaasa waan soo diyaarshay sidaas ayuu aad u cabi kartaa markii aad karkariso oo isku uumiso oo isku qaaciso shaahiisana saa u cabi kartaa marka waxaan galina mowduuceena kaleeto insha Allah mowduuceen labaad wuxuu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo huruuda ay leedahay huruuda madan waa soo shiiday iyadoo waxa waay herbal oo mid qoryaha dhadhanka la soo gataa la soo shiiday kuwa meelaha lagu gado waxay yihiin taqaanid taas ayaa la hubaa ninka taasan soo shiido meeshan ku soo diyaarsada waaye
faa'iidooyinka ay leedahay huruudda mid inta lagu soo koobi kara ma ahan waxay baabi'isaa aad iyo aad ugu fiican tahay diiqada yani qofka problemka markasta haysto aad iyo aad ay u dajisaa walwalka iyo niyad-jabka iyo problemka يعني intaas waa isku mid aad iyo aad ay ugu wanaagsan tahay huruudda waa daraasad la soo ogaaday waxay hoos u dhintaa macaanka sokorta waxay aad iyo aad ugu sii wanaagsan tahay daawada oo sokorta loo isticmaalo mideeda labaad oo metformin la dhahayo aad iyo aad huruudda ayaa ka sii wanaagsan hadii isticmaalkeeda adigoon daawooyinkaas sokorta qaadada kaliya huruudda ku bilaabato aad ay ugu wanaagsan tahay waxay kale aad ugu wanaagsan tahay maqaarka way qurxisaa antibiotic way tahay qalajiyo way tahay maxay ahayd aniga waxaan aad iyo aad ugu isticmaalaa oo aad iyo aad ilmahan siistaa qunfaca waxay aad ugu sii wanaagsan tahay qunfaca sida shaax amal ayaan u karshaa caruurta waan siistaa aad iyo aad ay qunfaca ugu wanaagsan tahay cuntooyinkan waa lagu darsadaa baryahan dambe dadku way fahmeen aad iyo aad ay u isticmaalaan waxay kale u sii wanaagsan tahay antifungalka yani faraha hoostooda bahalaha ku dhaca xiriga jeexjeexa lugaha oo kaleeto aad iyo aad ay u wanaagsan tahay taasna waa la soo ogaaday huruudna manaafacaadkeeda inta lagu soo koobi karo iyo faa'iidooyinka ay leedahay waxay ka sii wanaagsan tahay caloosha calool xanuunka way u fiican tahay calool manjiirka waxaad sameyn kartaa caanaad ku qasan kartaa habeenkii intaada seexan ka hor waad ku qasan kartaa hal qaado yar oo saan camal qaadada siriista markaad ku qasato caanaha dabka saaraysaa oo soo karkarinaysaa waa ku qasanay waa cabi maasha Allah aad iyo aad ay wanaagsan tahay ilmaha riixyada qaba ee qunfaca qaba hadii aad ka seexan weyso qaado huruuda u kari si maasha Allah horay ku hurdayaan qunfac dambana ma ku arkaysid marka aad iyo aad waxaan u isticmaalaa oo aad iyo aad u isticmaalaa qunfaca caruurta qunfacayso hadii aad siisato maasha Allah hirgabka kaleeto hirgabku ma dhacayo cunuga huruudaas cabo hirgab ma ku dhaco marka walaalahayga qaaliga waxaan jeclaysanaa iga faa'iideysataan sidaan u isticmaalo daawada dhireedkan nimcooyinka Ilaahayna siiyay ee anaga aan maxay ahayd garanaynin sidaan uga faa'iideysano haddana waxaan soo qaadanayaa koob biyo karkaraayo qaado huruuda ayaan ku darayaa sida aan u isticmaalo sida shaaha amal loo cabayaa dadka waaweyn iyo caruurta munfacayso la sii karaa xanuun baabiye aad iyo aad u wanaagsan way tahay marka xanuunka qandhada qofta hayso hadaa koob u soo kariso siiso xanuunka uu daynaa inta paracetamol iyo kiniyaal aad ka dal wareegi lahayd hala baroobayo huruudda qaadada sirista foodeeda ayaan ku daray marka qunfaca qofta qunfacayso kaleeto sidaas aad ugu soo waxaynaysaa oo siinaysaa xanuun baabiyana way tahay qofta xanuunka hayana aad iyo aad ugu wanaagsan tahay hadaad siiso sidoo kaleeto xanuunka uu daynaya oo qofta markaas ay haayo waxay kale u wanaagsan tahay xusuusta aad iyo aad dadka ilowshaha badan leh aad iyo aad ilowshaha badan leh waa wanaagsan tahay xusuusta aad ugu wanaagsan tahay marka huruudda la baroobeeyo la badsado cuntooyinka lagu darsado iyo sidoo la karsado marka walaalahayga qaaliga mowduuceenan ka hadlaayay iyaga faa'iideysta intaan ka roonaan oo idin soo dayna insha Allah ta'ala waxaan kaga tagayaa dunida cad meel kasta oo joogtaan assalaamu alaykum caafimaad qab assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada